بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد سلامي ميلو الباجوكتين سودو هذا يشير قراية لايك إيسارة سبسكرايب إيسارة آد يا أمهات سنتهين nimanka iyo naagaha ayaa daran dadka la isticmaalo maskaxdooda. Fikirkayga aniga nimanka ayaa daran waayo haddii uu xaas yahay iyo haddii uu waalidkiisa la nool yahay maanta waa dhalinyaro badan oo waxaa jirta oo weli waalidiintooda ka agtagin ama kusoo laabtay oo iska dhex fadhiyo iyo kuwa xaas noqdayba. kuwa xaaska haddaan ku bilaabo, qofkan bini'aadanka ilaahay horta maskaxuu siiyey, aqliyuu siiyey, tiisa hadduu u isticmaalaynin oo uba arkayninba maskaxdiisa, maskaxda kale un u cad dhibaato weyn waa. horumarna ma gaarayo weligiisa. qofka asiga la joogana wuu ku dhibaatoonayaa, wuu baxayaa. maskaxdi kale oo asaga haysatay ayuu u tagayaa, waa loo soo sheekeynayaa, amarkiisuu soo qaadanayaa, guriga wuxuu ka sameyn lahaa loo soo sheegayaa. islaamta haddii oo maxaa la dhahayay la rabo waa lagu soo dirayaa, tiisa ma ku shaqeeyo. matalan gurigii oo kale problem ayaa taagan, wax yar ayaa la isku qabsaday, wixii wuxuu geynayaa cirkaasuu geynaya, waa cararaya, meeshii uu tagayaa. wuxuu leeyahay naagtii waxaas i weydiisay, ama waxay leedahay meel aada ilmihii iiga tagtay, markaasaa lasoo buuxinaa laleeyahay saa ilma kaaga tegi kartaa, see waxaas ku weydiin kartaa, way qaldan tahay. asiga gurigiisa amarka uu ka qaadanayo uma malayn kartid yaa, laakiin kan baddaa lagu tuurayaa. kadiiduu leeyahay ka qaadanin amarkaas, haba la hadlin guriga haddaad tagtid, meelahaaga ka cuntay, haddaad tagtid xitaa iska daa. markaasaa markuu gurigu tagaba ilmiyaa kusoo cararaya, dee ciyaal joogaan, waxaa leeyahay aaba waridahay madaxay xanuunaya, iga xil ilmahan, iga qaba ilmahan. masaakiinta ayadoo daalneed, ilmihii maanta dhan la harjidaysay oo cunto u karinaysay, haddana dhibaato kale ugu sii darayaa. asaaba wataba dhibaatada. war maxaa kugu dhacay, maxaa kaa qaldan, maxaa kaa seen, hayla hadlin hartaa inaa i xukuntid, waxaa rabtaa inaa maxaa dhahaya aniga i abuuskaraysid, waxaa rabtaa inaa aniga kan ugu samaysid. subxaanallah, ma aha maskaxdiisa waxaasoo dhan, waa qof la haysto, maskaxda laga haysto. marka qof walbo bini'aadana waxaa fiican maskaxduu ilaahay siiyey inuu ku xisaabtamo, inuu wuxuu qalada galay uu iskala xisaabtamo, wixii sax uu sameeyey inuu iskala xisaabtamo ayaa fiican. maanta xilligan la joogo dadka maskaxdooda kuma wada shaqaystaan, ra'yi kale ayay ku shaqaystaan, ama ku socdaan ama ay ku nool yihiin. matalan kan hadda hooyadiis la joogo, waxaa laga yaabaa weligiisba in lasoo korinayo, wax laga soo bixinayo, waxbarasho laga soo bixinayo, siduu rabo loo yeelayo, xaq islaameed ka buuxo, dhiig kalaa ka buuxo. ilan maalintuu dhashay ilaa haddaba shilin asiga uu lahayn uu cunaaya. asigana muxuu sameynayaa? maskaxdiisa kuma shaqeynayo. hadduu maskaxdiisa ku shaqeysanayo, horumaruu sii sameyn lahaa, wuu shaqeysan lahaa. intaasaa lagu soo hayay, waa lagu soo barbaarinayay, walaalaha way kusoo caawiyeen, ama waalidkaaga uu kusoo caawiyey, horumar kale sii sameey ma jirto. wuxuu kusoo jeesanaya ciddi, waxaa leeyahay hebel ma lagu dhoofiyey, maya wallaahi ciddaan ma aqaan, wax ka qaldan, waxba ilama rabaan. dee cidda kuma rabaan, hadday ku rabaan mar hore ay ku dhoofi laayaan. habarta meesha fadhida maalaha dishid, dee habarta intay noo shaxay ka qaada xoolaha haysato, meesha doonta ku aadi. maxaa maskaxdaada haddaa ku xisaabtami lahayd, qaladaadkaasoo dhan waa sixi lahayd, laakiin taada kumaba shaqaysid, tu kalaa ku shaqaynaysaa. war intaa la egtahay soo uma jeedid in lagu soo koriyo oo lagu soo barbaariyo oo lagugu soo rafaaday, meeshii lagaa rabay adiga inaa caawisid, adiga dhibaato haddana u keenaaya. maamada intay noolaan lahayd adaaba cirab tiraayo oo haddana sii dhamaystiraayo. markaasay walwalaysaa, markaasaa maxaa la dhahayay maamadii dhexda ka baxee. qofkii wuxuu leeyahay ani ima jeclid, ani ima rabtid, ani wax ima siisid, aniga waa la i necab yahay. wuxuu leeyahay habarta saasaan ku sameeyey maanta, moogtahay ayaga dhan waa ku xanaaqay, moogtahay guriga maanta waa gabagabeeyey, moogtahay wax fiicanaa samaysaa la leeyahay. ilaahay ka cabsada oo maskaxdiina isticmaala. maanta say u badan yihiin Soomaali maskaxdooda ma isticmaasho, maskax kale isticmaal, qof kale maskaxdiisa la isticmaalaa. war adiga ilaahay ka cabso, qofkaasi adiga isku mid ayaa tihiin,
hal ilaahay ayaa idin wada abuuray hal aqli ayaa leedihiin maxaa u qaadanay ra'yi qof kale qofkaas taluu ku siin karaa wuu ku caawin karaa wax uu ku sheegi karaa laakiin ina maskaxdiisa adiga ku shaqaysid hormar kuma ahan inta xun ayaan ka hadlayaa yani waynu ku badan yihiin nimanka Soomaaliyeed inta fiican ani ma haysti hormar wacan ayaan idin wada rajaynayaa dadkan oo maskaxdooda laga adeeganayo ama maskaxda kale ku shaqeynayna waxaan leeyahay Allah idin soo hadeeyo